Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaan saaxiibada igaga xidhan YouTube-kayga waa idin salaamaya marka koowaad. Magacaygu waa Maxamed. Waxaan go'aansaday inaan ka hadlo mowduuc xaqiiqatan muhiim ah. Waana mowduuc laga yaabo in badan oo idin ka mid ah inuu dhagihiina kusoo dhacay amaba aad taqaaniin oo ka shaqaysataan. Mowduucan waxa weeye Forex, suuqa sarifka online-ka ee Forex. Waa maxay Forex? Sidee looga shaqaystaa? Iyo dhammaanba xirfadaha uu kaaga baahan yahay Forex baan YouTube-kan si maalinle ah inoogu soo gelin doonaa insha Allah, weliba si free ah insha Allah. Xirfad walba uga baahan tahay Forex si aad uga shaqaysato, si aad u barato dhammaan toolska iyo waxyaabaha u baahan yahay Forex insha Allah baan soo gelin doonaa YouTube-kan. Waxaan rajeynayaa inaad si maalinle ah ula socoto oo aad noqoto daawadaha markasta ku xidhan YouTube-kan. Waxaan rajeynayaa casharradeena marka aan dhamaysano insha Allah inuu qof walba oo bilowda isla markaana ila dhamaysta uu wax weyn iska bedeli doonto aqoontii uu u lahaa Forex. Kii aan aqoon oo aniga ila bilowdana inuu insha Allah meel fiican ka gaari doono Forex, ganacsigana uu faa'iido fiican ka samayn doono insha Allah. Haddaba mowduuceena ugu horeeya maanta oo aan ka hadlayno waxa uu yahay waa maxay Forex? Muxuu yahay horta suuqan Forex la yiraahdo? Forex waa suuq online ah. Forexna waxay ka timi laba kelmadood oo la yiraahdo foreign exchange. Forta hore waxay ka timi foreign, exta dambena waxay ka timi exchange. labadoodaas tan horena forta laga soo qaatay, tan dambena exta laga soo qaatay, sidaas waxay ku noqotay Forex. Haddaba muxuu yahay Forex? Macnaha Soomaali ahaan muxuu noqonayaa? Macnihiisa Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa sarifka lacagaha qalaad ama sarifka lacagaha ummadaha kale, dadyo kala duwan lacagahooda oo la isku sarrifo waxa la oranayaa Forex ama isku beddelka lacagaha qalaad. Okay, haddaba suuqa Forex waxa uu furan yahay 24 saacadood ee 5 maalmood ee shaqada. Waxa laga wadaa Sabtida iyo Axadda uu xiran yahay, laakiin 5 maalmood ee kale 24 saac ee maalin walba oo 5 maalmood kamid ah suuqan Forex wuu furan yahay. Daqiiqad walba oo kamidana waa gali kartaa, waana ka shaqaysan kartaa, waana ka faa'iidi kartaa. Sida dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay waqtiyadan uga sameeyaan faa'iidooyin badan iyo $10 usbuuciiba. Haddaba suuqan Forex maalin kasta oo 5 maalmood kamid ah waxa la isku dhex mariyaa ama lagu kala faa'iidaa lacag ka badan $6 trilyan. Hantida intaa la eg iyo badnaanta iyo xaddiga la eg ba every single day oo Forex furan yahay oo 5 maalmood kamid ah lagu kala faa'iidaa. Okay, haddaba suuqan sidee buu u shaqeeyaa? Maxaase u baahan tahay si aad suuqan uga shaqaysato adigoo aan cidna adiga iyo suuqan idin dhaxayn? Si adigu sidee ba uga shaqaysan kartaa suuqan? Maxaase u baahan tahay? Haddaba suuqan guud ahaan suuqan sarifka waxa la sameeyaa, for example lacagta euro ama lacagta dollarka baa marka ay lacagtu raqiiska tahay ee dhulka taalo baan soo iibsanayaa. Lacagta waa soo iibsanayaa. Marka ay lacagtii aan soo iibsaday ee markaan soo iibsanayay jabnaydu qiimaheedu aad ka hooseeyay, marka qiimaheedu kaco baan sii iibinayaa si aan faa'iido uga helo. Waa la fahmay baan u malaynayaa. Lacagta eurada baa marka qiimaheedu jaban yahay soo iibsanayaa marka qiimaheedu hooseeyo. Marka qiimaheedu kacona waan iska gadayaa si aan faa'iido uga helo. Lacag walba oo la midowna waa noocaas, ama Great Britain lacagta Ingiriiska ha ahaato, ama tan Mareykanka ha ahaato, ama tan Kanadiyaanka ha ahaato, ama tan Jabaanka ha ahaato. Lacag walba oo kamid ah lacagaha dowladaha ama dadyooga dunida, markasta ay lacagtaas jaban tahay Forex ahaan waa soo iibsanayaa. Markasta lacagta qiimaheedu kacdana waan iska sii iibinayaa si aan faa'iido uga sameeyo. Haddaba shaqadan xagee bay ka dhacaysaa? Shaqadan isku beddelka lacaguhu xagee bay ka dhacaysaa? Lacagahan aan isku sarrifayaa. Lacagta Forex-ka aad isku sarrifaysaa waxay ka dhacaysaa horta internet-ka dhexdiisa ka dhacaysaa. Adoo qolkaaga jooga, adigoo gurigaaga jooga iyo adigoo goobtaada shaqada joogaba baad internet-ka dhexdiisa lacagihii ka sarrifaysaa oo faa'iido ka dhalinaysa halkaas.
okay haddaba internetka maxaan isticmaalayaa waxa isticmaalaysaa dulaal ama waxa loo yaqaano broker kana waxaad ka helaysaa internetka dhexdiisa isagana ka helaysaa brokerka waxaad deal ama heshiis kala galaysaa internetka dhexdiisa waa iska diiwaan gelinaysaa sharciyadaada iyo documentigaaga iyo passportkaaga u diraysaa ama ID card waxaad haysataa u diraysaa marka aad brokerka iska diiwaan geliso ba brokerkiiba wuxuu isku keen xirayaa adiga iyo forex brokerka waxa dhex yaala lacagihii aad isku sarifi lahayd oo dhan baa dhex yaala okay marka sida brokerku ku aqbalo baad lacagahaas isku sarifaysaa xirfadda markaad barato ka bacdi sidaasaad faa'iido ku sameynaysaa okay haddaba maxaad u baahan tahay si aan forex uga shaqeeyo maxaan u baahanahay waxa koowaad aad u baahan tahay si aad forex uga shaqeysataa waxa weeye inaad xirfadan barato horta inaad xirfadii forex-ka aad barato cilmigii sidii aad faa'iido u dhalin lahayd ama sidaad ganacsigan u sii dhexgeli lahayd sarifka inaad barato laba waxa u baahan tahay mobile smartphone u baahan tahay mobile smartphone aad u baahan tahay sidoo kale waxa u baahan tahay computer ama laptop aad u baahan tahay sidoo kale waxa u baahan tahay internet ma u baahan tahay afarta hadii aad isla hesho faa'iido fiican ba ka sameyn kartaa every day ka sameyn kartaa forex-ka dhexdiisa ka sameyn kartaa okay haddaba suuqan yaa ka shaqeysta suuqan dad yooga ka shaqeysta ee lacagahooda geliya ee 6 trilyan aynu soo sheegnay maalin walba ku kala faa'iida yeeyihiin okay waa 6dan soo socota adiguna mid kamid ah 6daas aad gelaysaa cid kasta oo suuqa forex lacag gelisay waa 6dan nooc mid kamid ah weeye kuwa ugu horeeya waa maxay waa bangiyada dawladuhu leeyihiin bangiyada dhexe ee central bankiga ay dawlad kasti leedahay horta suuqan ka shaqeystaan lacagahooda geliyaan si ay faa'iido uga sameeyaan waxa kamid ah sidoo kale dawladaha kamid ah dawladaha dunida iyaguna lacagahooda geliyaan suuqan si ay faa'iido uga sameeyaan waxa kamid ah bangiyada khaaska loo leeyahay waa kamid ah sida bangiyada Soomaalida oo kamid yahay Dahabshiil iyo Salaam Banki iyo mid walba oo bangiyadaas kamid ah waxa laga yaabaa kuwa badan oo bangiyada Soomaali inay ku jiraan forex ba kamid ah dunidana bangiyada khaaska loo leeyahay waa lamid forex way ka shaqeystaan waxa kamid ah shirkadaha waaweyn baa kamid ah sida Facebook iyo shirkadaha waaweynka ba iyaguna kamid oo suuqan ka shaqeysto lacagahooda geliya waxa kamid ah maalqabeennada kamid ah dadyoga lacagta leh ba iyagana lacagtooda intay bangi iskaga shubaan ma dhigtaane si ay faa'iido lacagtooda ugu sameyso waxa weeye forex bay ku galaan oo forex bay kaga shaqeystaan faa'iido badan kaga sameeyaan waxa kamid ah xirfadlayaasha waxa soo galaya adiga muuqaalkan daawanaya hadii aad barato forex waxa noqonaysa xirfadle suuqan ama dad baa u shaqeynaysa oo mushaar ka qaadanaysa oo lacagahooda ugu shaqeynaysa ama bangiyaha ahaato ama dawladaha ahaato saasayna sameeyaan dad yow xirfad 30 sano 25 sano 20 sano 15 sano dad in badan ku soo dhex jiray forex-ka waxa laga yaabaa inay u shaqeeyaan dawlado bangiyo waaweyn bangiyo dawlado inay u shaqeeyaan oo lacagtii ay haysteen faraha badneed ugu shaqeeyaan lacagana ka qaataan waxa laga yaabaa bilaayin dollar trillions ka dhaliyaan balaayin inay balaayin ka dhaliyaan one day ama maalmo gudahooda inay ka dhaliyaan marka sidaas iyaguna ku shaqeystaan okay dadka inaga adiga iyo aniga la midka oo maxay tahay lacagaha yar yar haysta dhowrka $100 $1000 dadka haysta gorma forex loo ogolaaday waxa loo ogolaaday dadkani inay suuqan ka dhex shaqeysan karaan 2006 wixii ka dambeeyay baa loo ogolaaday 2006 wixii ka dambeeyay baa loo ogolaaday brokerskaasana ay sii dhex marayaan oo iska diiwaan gelinayaan oo ay depositkooda dhiganayaan markaas ay bilaabayaan tradingka ay bilaabayaan okay haddaba lacagaha ugu badan ee suuqan lagu dhex isticmaalo ama la isku dhex sarifo maxaa kamid ah lacagaha ugu badan ama ugu muhiimsan waxaa kamid ah GBP da Great Britain pound-ka USD da oo dollarkii ah Canadian-kii Australian dollar-kii baa kamid ah AUD New Zealand dollar-kii baa kamid ah CHF baa kamid ah GBY ama Japanese yen-kii baa kamid ah iyo euro lacagtii European-ka kamid ah waxa soo dhami waxa weeye lacagaha suuqan forex lagu kala bedelo qayb kamid ah GBP USD for example baa la kala bedelaya oo la isku sarifaya haddaba suuqani wuxuu ku noqon karaa adiga idaawanaya fursad ganacsi oo aad muhiim ah waxa u baahan suuqan oo maanta baahi aad u weyn u qaba dhalinyarada Soomaalida ba u qabta oo shaqo la'aanta ah oo wadanka burburka aynu joogno waa aragtaan dhalinyaradeena suuqa aad ugu baahan maadaama wadankeenu shaqo lahayn wuxuu inoo noqon karaa il dhaqaale oo aad u fiican aadna ku afiici doonta adiga iyo family-gaaga iyo noloshaada wax badan ka bedeli doonta haddaba dhalinyarada Soomaalida waxaan
kula talinaya inay suuqan xirfadiisa si kal iyo laaba ama si deeply ay u bartaan waqti galiyaan kana shaqeystaan noloshoodana ay ka anfacaan dad badan hadda Soomaaliyeena way ka shaqeystaan way ka aflixeen maxay tahay wax badanna way ka faa'iideen haddaba guud ahaan forex xisadani koowaad ee maanta intaasay noo ku eg tahay oo ahayd waxa uu yahay forex ama muxuu yahay forex insha Allah waa sii guda galaynaa toolska u baahan tahay inaad forex ka dhex shaqeysato website-yada u baahan tahay muxuu ahay inaad suuqi ku analyze gareyso technical analysis iyo fundamental analysis-kiiba istiraatiijiyado suuqan kaga shaqeysan karno dhamaantood ba insha Allah si free ah baan YouTube kan u soo gelin doona hadii la yiraahdo ku xidhnow insha Allah si aad xisadaha dambe ula socoto oo casharada dambe ayna ku seegin insha Allah waxaan rajeynayaa cid ku xidhnaata in ay wax badan ka bedeli doonto xirfadii ama aqoontii ay u lahaayeen forex-ka dhexdiisa intaan ku kulmi doono xisada xigta insha Allah ama muxuu ahay muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum